wuxuu haddii horta aasaaska ay ka wareeraan way dhib badan tahay inay hagaagaan. Aasaaskan waxa ugu horeeya fahamka qofka. Waa maxay booliis askari uniform haysto oo jidka taagan oo dadka kala celceliya leh miya maya yani intaas waa ka weyn yahay. Ogow cunuga dhalinyaro subax iskuulada u dheelma leh dhahaya caawa degdeg u seexday midka maxaan ku raadayay iska soo jeeda caawa inuu soo jeedo oo maxaan ku raadayay wixii uu markaa doonayo ku soo jeedo shaqo haday tahay madaala haday tahay intaba waxaas ay ku qabsanayaan waa adiga madaxaaga. meel balaaya ka dhacday amni darra ka jirto lagu kala cararay la isku kalsoonayn qof bariyaysa malaha qof walba waa haajiray waa sii soconay. malaayiinta Soomaalida ah ee dalka ka baxday xuduudaha ka talawday qaarkoodna dhax ku sii dhinteen maxay u baxeen maxay u carareen ma qof gurigeeda iyo sharafteeda iyo heebadeeda inay ka baxday jirtaa ya rabtaa jir. booliisku marka macnaha uu ku fadhiya waa saas inay ka adkaystaan oo aanay kana baqin una dhagan nuglaanin qofka qawaaniinta in la dabiyo rabto mas'uul noocu doonaha aad sarkaal kale booliis ha ahaado sarkaal kale ciidamada kale ka tirsan ha ahaado xukuumadda mid ka tirsan wasiir ku-xigeen dawladda ha ahaado. waxa howlkan maanta ku kulansan dhibow muddo 4 bilood ah ku soo jiray oo maanta loo furay tababarka rasmi ah si ay u gaaraan ilaa 9 bilood oo ah curriculumka hadda aan u dejinay inuu dhibow u ku shaqeeyo. waxaa kaloo halkan ku sugan ciidan dugsiyada dhexe arday aan ka qaadanay oo ayagana aan ugu talagalnay inaan barno khibradaha taraafikada ilaalinta canshuuraha iyo baarista dambiyada. waxaa kaloo ku sugan laba nooc oo layli sarkaal ah layli sarkaal oo sugaya inay dibadda u baxaan iyo layli sarkaal oo la diyaarinaya oo aan la kaashan doono dawladaha asxaabteen ah inay noo siiyaan muxuu ahaa tababarkii layli sarkaalnimo. sida aad la socoto akaademiyada heerkii layli sarkaal ay ku diyaarin lahayd ma joogto laakiin waxaan goosanay annagoo awaamirtaada fulinayna waxaan qabsan karno inaan qabsanno.